wakiilka jamhuuriyadda Soomaaliland u qaabilsan wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya Dr. Adna Aadan ayaa waxay markii horeysay ka hadashay khudbad muran badan dhalisay oo gabadha ajaanib oo lagu magacaabo Maria Fachino oo ka mid ah shaqaalaha cusbitaalka Adna Aadan ay ka jeedisay munaasabad lagaga hadlayay mutadawacnimada iyo horumarka caalamiga ah. Maria Fachino ayaa sheegtay in shaqada ugu muhiimsan ee dalka u joogto ay tahay inay si mutadawacnimo uga qayb qaadato furitaanka kiniisada ay ku cibaadaysan doonaan dadka aaminsan madhabta Kootariga oo laga furay magaalada Hargeysa, balse Dr. Adna Aadan ayaa sheegtay inay tahay wax laga xumaado khudbadii ay Maria Fachino ay ka jeedisay munaasabadaasi, waxaana intaasi raacisay in shaqaalaha jaanibka u yimaada ay shuruudo ku xiri doonto. Dr. Adna Aadan ayaa sidaasi ka sheegtay mar ay khudbad u jeedinaysay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Adna Aadan. maalmo dhaweeyto waxayna soo galay dhibaatayna soo gashay, waxaynu ugu yara faruurantay bulaacad yar baynu ugu soo jabtay, waxaynu kumaynaan tala gelin markaad jawaan bariisa iibsato ka waaymaysid wax laga naqeeyo bariiska madmadow baa ku jira, dhagxan baa laga dhex helaa, waxaan loogu tala gelin bariiska ayaa laga dhex helaa. waxaan ugu doonayaa inaad noqotaan kuwii inaga ilaalinayay waxaa madmadowga leh ee inaga soo dhex gelaya cisbitaalkeena, jaamacaddeena, dalkeena, danteena, diinteena islaamka ee inaga soo dhex gelaya inaad gidi askari wada noqotaan baan doonaya. haddii aad aragtaan wax aynaan geyin macallimiintiina u sheega, sheekhiina maxamed oo marnaba idinka fogaanin u sheego waxaan sheekhow waxbaan yara tuunsana intaanay waxaanu fidin ama bulaacadda inagu soo jabin ayaynu iska moosaynaa iska qabanayna. raalli kamaan ahayn wixii gabadhaas ku hadashay, raalli kumaan ahayn hadday la tagtay maxaan ahayd jaamacad maxay ahayd alfa, hadday halkaa ka tiri iyo hadday halkan ka tiraadaba labada dalkayga Soomaaliland bay ka tiri. raalli kama nihin iyada iyo cid kale toona. waxaanan laga bilaabo maanta qofkii ajnabi inoo yimaado warqad baan ka saxeexaya oo aan sheekhana koo basiin doono oo aan leeyahay intaad muddada waddankeena aad joogto hawsha aad u timid ee tiri waan qabanayaa, waan kugu soo dhawaynaynaa, waan kula shaqaynaynaa, waan kugu mahadnaqaynaa, laakiinse inta aad waddankayga joogto wax diintayada faragelinaya ama dadkayaga diimo kale kala sheekaysanaya ama u soo jiidaya kaama ogolin. taasay noo saxeexayaan, haddaanay ogolayn inoo soo geliba maayaan. qofka taa saxeexi maayo dee waa qof inoo badheeray, laakiinse intii risaalad wanaagsan la gaadhsiin karo inaad nala gaadhsiisaan baan doonaynaa. sheekhow aroorta haddaynu noolahay ama sabtida iga soo doon warqadda ku dhaji xafiiskaaga, waxaan qofkii sidaa ku dhaqmayo welcome waan ku soo dhawaynaynaa, taada hayso laakiinse taayada ha faragelin. waa Fahad Axmed Kaariye, wararka telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Hargeysa.